Bismillahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed dugsiga sare fasalka 12aad group-kiisa koowaad, labaad, saddexaad intaba waa idin salaamay. Salaan kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa loo yaqaano using a little view. Marka laga hadlayo adeegsiga little, marka laga hadlayo waxyaabaha horta quantities loo yaqaanaa. Little waxaa loo yaqaanaa micnaheedu waxa weeyaan wax yar. Little ayadan waxa weeyaan yar weeyaan. A view waxaa loo yaqaanaa ayadan marka laga hadlayo waa wax yar, some iyo waxyaabo lamid ah laga hadlaa. View-na sidoo kale maxay tahay marka farqiga u dhexeeya intoodaba mid ayaan u qeexi doonaa hadduu eeba idmo. Marka ka hadlayno a little, marka ka hadlayno is used waxaa loo isticmaalaa with a positive quantity. A little marka laga hadlayo waxaa la isticmaalaa positive quantity, tiro togan ama waxyaabaha xaqiiqda ka hadla ama qeybaha waxyaabaha badana aba aan ku dhicin wax wada ah, plural aan ku dhicin ayaa loo isticmaalaa. And non-countable nouns magacyo aan la tirin karin. It means micnaheedu waxay tahay a small amount ayay tahay. Small amount maxaa loo yaqaanaa? Small amount marka la fasirayo waxaa loo yaqaanaa qadar yar, yacni tiro yar ayaa loo isticmaalaa. Or ama some xoogaa, a little xoogaa, wax yar. Waa markii laga hadlayo non-countable nouns, magacyada aan la tirin karin marka la isticmaalayo ayaa loo isticmaalaa marka. So marka loo fiirina, marka qaabkee loo fiirina, in singular pronoun ayaa loo fiirinayaa. Example tusaalooyin marka fiiri, there is a little milk in the, marka la fiirina waxaa lagu dhahay there is a little milk in the refrigerator. Xoogaa caano ayaa ku jiro talaajada ama qaboojiyaha ama finjeerka. Waxaa loo yaqaanaa refrigerator marka laga hadlayo. Refrigerator waa Mareykan ayaa saas u dhawaaqo. Britishkan waxay leedahay marka laga hadlayo refrigerator. Way soo gaabinayaan halka Mareykan waxay dhahaan refrigerator oo macnaheedu tahay talaajada ama qaboojisada. Marka weedhan waxaan ka garan karnaa milk ayaa fiirinaynaa. Milk waa shay aan tirin, saas a little ayaan u isticmaalaynaa. Weliba singular pronoun ayaa u fiirinaynaa. Afwan waxaan u fiirinaynaa singular noun ayaan u fiirinaynaa. Qodobka labaad waxaan leeyahay will you like a little water? Xagaa biyo miyaa jeceshahay? So marka wadhaan maxay ka hadlaysaa little? Waxay ka hadlaysaa some xoogaa ama waxay ka hadlaysaa small amount ay ka hadlaysaa. Tusaalada kale, Mary gabadh yiraahdo God waxay heshay a little bit of pie, gobol yaroo doosho ah. Haddaba marka meeshaan a bit of little pie, gobol yaroo doosho ah laga hadlayaa, waxaa loo isticmaalayaa wax loo yaqaano non-countable noun ama waxaa loo yaqaanaa uncountable nouns. Qodobka kale waxaa lagu dhahay can you discount it a little? Xoogaa qiimo miyay dhimin kartaa xoogaa? Wax laga hadlayo waa badeeco ama alaab ama maacuun ama waxaa laga hadlayaa ama cuno wax la kala iibsanayo. So marka waxyaabahaas oo kale tusaale sokor in waxba laga iibsanayaa. Meeshuu sokorta uu ka dhihi lahaa qofkan wuxuu dhahay can't you discount it a little? Miyaadan xoogaa iga dhimi karin qiimaha shayga aad gadayso. So saa aligeed marka shayadan waxaa loo isticmaalaa a little oo micnaheedu tahay wax yar, kuwaasoo badanaa laga hadlayo non-countable ama uncountable nouns, magacyo aan la tirin karin. Marka loo eego singular noun, weedhaan ama jumladaha marka la fiiriyo wax ku jiro ma arkaysid, plural wax ku jiro ma arkaysid. Saa aligeed a little ayaan u isticmaalaynaa marka. Laakiin shayga marka la isku waafaqsan yahay oo yahay positive ayaa loo isticmaalaa a little. Little keligeedna maxaa weeyaan iyadana negative. Waan arki doonaa hadduu eeba idmo. Waayo qodobka kale waxaa la little yar. Wax yar iyo yar ayaa loo kala isticmaalaa. Little expresses waxay muujisaa waxyaaba laga hadlayo, waxay muujinaysaa little expresses waxay muujisaa waxa loo yaqaano diminutive, ayay muujisaa diminutive size, cabir yar. Ama waxaa loo yaqaanaa cabir yar ayay muujinaysaa. Waxay muujinaysaa diminutive size, cabir yar. Oo saas diminutive British American ayaa ugu dhawaaqo. Britishkan waxa ay dhahaan diminutive size, cabir yar. Halka Americankan ay dhahaan diminutive size, cabir yar. Waa isku macno. Ereygaas waxaa loo yaqaanaa yar ayaa loo yaqaanaa. Or ama negative quantity. Negative quantity ayadana sidoo kale waxaa loo yaqaanaa tiro taban. Yacni waxyaabaha negative-ka ku dhegan aan positive-ka ahayn ayaa loo isticmaalaa. Saas ayaa loo isticmaalaa little keligeed marka aysan raacinin e. So marka micnaheedu maxay tahay? Little means micnaha little waxay tahay almost nothing, ku dhawaad waxba, oo micnaheedu tahay not much, waxaan badnayn. Much ayadana waxaa loo isticmaalaa non-countable nouns ama uncountable nouns, waxyaaba aan la tirin karin ayaa loo isticmaalaa. Money waxaa loo isticmaalaa ayadana wax la tirin karo. How many students
do you have imse arday haystaa how much money that you got imse lacag ayaa heshay sidaa oo kale ayadan much sidaasaa loo egaa iyo money laakiin hadda casha keena not much micneheedu waxay weeyaan little weeyaan tusaalaha fiir marka examples I'm sorry aan ku xumahay I speak little French xogaa marka Faransiiska wax yar ku hadlaa marka weedhan diidmo marka loo fiirinayo not much ma badno Faransiiska in yar ku hadlaa weeyaan French marka laga hadlaayo waa uncountable weeyaan waa luqad wax la tirin karo ma marka luqadda 1 2 3 4 mala dhowr eray ka kooban tahay dhowr qaab ay ka kooban tahay marka little iyo a little lagama helayo wax plural ku dhayan lagama helayo word kasta little iyo little raacsan waa inaa jumladu ay ahaataa singular pronoun marka singular noun oo loo eegayo uncountable ama uncountable good su'aalaha labaad there was waxaa jira marka little time waqti yar so time kan wuxuu ku jirta exas ka mid ah exasyada idin soo diray ay ka mid ahayd time marka ayadana waa waqti looma isticmaali karo view iyo a view looma isticmaali karo maxaa yeelay waxay ka mid tahay waxyaaba aan la tirin karin there was a little time to finish waqti yar baan haysan aan ku dhamayn ama aan ku gagabeeyo my homework layligayga ama shaqada guriga so was iyo time marka la fiirinayo little keebay ka hadlaysaa timeka ayay ka hadlaysaa marka was a fiirin time fiiri time waxaa weeyaan waa non countable ama uncountable maxay ka hadlaysaa little ayaa u isticmaali karaa marka little goorma isticmaala marka waxa aan ka hadlaa ay yihiin cabir yar ama wax aan aad ku badnayn ayaa loo isticmaala a littlena wax markay positive yihiin oo xoogaa ay yihiin laakiin badan oo wax yar oo yacni not much aan ahayn yacni dhif oo qiyaas oo kale ayaa loo isticmaalaa tusaalaha kale waxaa lagu dhahay marka tusaalaha kale waxaa la soo qaatay waxaa lagu dhahay marka the kitten ereygaas waxaa laga rabaa hal iya baxayso laakiin gaaladu badanaa waxay isticmaalaan double e laakiin badanaa sida saxda waxaa weeyaan K-I-T-T-E-N weeyaan the kitten bisada yar ama mukulaasha yar is little way yar tahay the kitten is little mukulaasha way yar tahay so marka hadda ma dhahayna non countable iyo ma loo fiirinayo inay wax la tirin karin looma fiirinayo waxaa loo fiirinaya haddii inay tahay not much waxaan badnayn marka hal bisad weeyaan waa lasla yaqaanaa marka waxaan dhahaynaa the kitten is little bisada way yar tahay mukulaasha way yar tahay so marka hadda ma loo fiirinayo negative quantity ayaa loo fiirinaa ama qaab waxaa loo fiirinayaa not much waxaan badnayn ayaa loo fiirinaya little qaabkaasaa loo isticmaalaa iyaduna okay shakhsiga iska hadlaa I have drank little water xoogaa biyo ayaan cabay this morning subaxii saakii biyo xoogaa cabay marka qofkan biyaha uu cabay waa waxyaaba aan la tirin karin water ayaan fiirinaya ani drank ma fiirinayo water waa uncountable noun weeyaan saa adligeed little ayaan u isticmaalayaa biyaha aa cabayn way yaryihiin ma ahan wax badan sam ma ahan laakiin waxaa weeyaan not much weeyaan waxaan badnayn farqiga u dhexeeya little iyo little waxaa ah a little waxaa loo isticmaalaa small amount ama small xoogaa waxaan aad ku badnayn little waxaa loo isticmaalaa not much wax oo zaidka aan ahayn haddana aad u yar ayaa loo isticmaalaa labadaas qaabkaas ayaa loo yacni comparismkooda loo fiirinayaa qodobka kale waxaa weeyaan a view maxay tahay micnaheedu kuwan kulli quantities isku dhaha waxyaabaha tayooyinka ama waxyaabaha tirada ama cadad waxyaabahaas ka hadlaya loo yaqaanaa a view maxay tahay a view represents waxay matashaa a positive quantity ayay matashaa positive quantity waan soo sheegnay waxyaabaha waxaa loo isticmaalaa positive tiro togan ama waxyaabaha ku dhahan waxyaabaha qiyaastooda ay tahay wax la isla garanayo oo haddana aan negative ahayn it is used waxaa loo isticmaalaa plural nouns magacyadooda darta ayaa loo isticmaalaa it means micneheedu waxay tahay some xoogaa ama small amount ay micneheedu tahay tiro yar qaacidada waxaa loo isticmaalaa a view plus plural countable nouns badanaa tan waxaa raaco magacyada waa inay ahaataa plural countable nouns magacyo la tirin karo oo haddana wadaraysan ama jamac ah ayaa looga hadlayaa tusaalooyin fiiri he has a few good friends so he is happy isaga wuxuu haystaa marka xoogaa asxaaba haddaba isaga wuu faraxsan yahay he has wuxuu qabaa a few good friends xoogaa asxaab ayuu leeyahay ama saaxiibayaal so haddaba he is happy wuu faraxsan yahay haddaba a few-da maxay ka hadlaysaa good may ka hadlaysaa maya friends ayay ka hadlaysaa friends maxay tahay waa saaxiibo maxay ka tahay saaxiibadu countable nouns maxay kaga jirtaa singular iyo plural maxay kaga jirtaa waxay kaga jirtaa qaybta loo yaqaano plural nouns magacyada oo wadaraysan hadda friends is raacsan waa jamac weeyaan weedhan ma ahan kelima ahan waa wadar weeyaan tusaalaha kale dee waxaa jira view books buuga on the shelf ee saaran shelf waxaa loo yaqaanaa armaajada buugta lagu kaydiyo ayaa loo yaqaanaa bookshelf waxaa loo yaqaanaa armaajada buugta lagu kaydiyo haddaba avida maxay ka hadlaysaa army ka hadlaysaa mis books waxay ka hadlaysaa books maxay yihiin waa countable nouns magacyo la tirin karo yay ka yihiin plural ayay ka yihiin wadar
saaaligeed waxyaabaha wadarta ah waxaa loo isticmaali doonaa a view iyadoo matalaysa positive quantity. Good. Tusaalaha saddexaad waxaan leenahay we stayed waxaan joognay a few days xoogaa maalmo ah in Paris ayaan joognay and visited waxaana booqanay Eiffel Tower waxaan booqanay munaarada loo yaqaano Eiffel loo yaqaan ereygan dhawaaqis waxaa loo yaqaan Eiffel ayaa loo yaqaanaa ama taalada Eiffel ee ku taalo Paris dalka France saa u taqaanaanba. Good. haddaba a view maxay ka hadlaysaa state may ka hadlaysaa mise days waxay ka hadlaysaa days maalmo waa wax la tirin karo waa countable waa yay ka tahay plural ayay ka tahay sa'aleed qaacidada waxay a view plus plural countable nouns. So a view markay raacdo a view fiirinaysa plus shayga raacaya waa inuu ahaadaa mid wadar ku dheehan ama jumladaas ay tahay mid jumlo ama wadar ah. Good. aku soo celiyo jumlada saddexaad tusaalaha saddexaad we stayed waxaan joognay a few days dhowr maalmo ama xoogaa maalmo in Paris ayaan joognay and visited waxaana booqanay the Eiffel Tower taalada Eiffel ayaan booqanay ama munaarada loo yaqaano Eiffel ee ku taala Paris dalka France. Good. a view waan isla fahnay view maxay tahay iyadana view represent waxay matashaa ama u taagan tahay a negative quantity. haddaba ogow wax kastoo view ah ama a little ay tahay negative quantity ayay matalaysaa wax kastoo ay tahay a little iyo a view waxay matalayaan positive quantity. marka la kala qaadayna waxaa loo isticmaalaa countable nouns iyo uncountable nouns. kuwa waxaa loo eegayaa singular noun kuwa waxaa loo eegayaa plural noun. haddaba view maxay tahay it is used waxaa loo isticmaalaa with the plural countable nouns magacyada wadarta ee la tirin karo. it means waxaa loola jeedaa macnaheedu not money waxaan badnayn not enough waxaan aan ku filnayn. waxaan waxay kor soo qaadanay wax loo yaqaan not much waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha aan la tirin karin not moneyna waxyaabaha la tirin karo. money iyo much saas ku kala fahmi kartaa much waxa la tirin karin ayaa loo isticmaalaa moneyna waxaan la tirin karin. so marka view marka isticmaalayso waxa weeye not money waxaan aad u badnayn ayaa loo isticmaalaya balse goorme waa walaxdu ama sheeyadu ama magacyadu waa inay ahaadaan waxyaaba la tirin kara. Good. qaacidada maxay tahay view plus plural countable nouns. tusaalooyinka aan fiirino bal I have got few friends in the city so I am lonely. I've got few friends waxaan helay dhowr saaxiib ayaan helay badin maya saaxiibadan waa kuwa cajiman laakiin aan aad u sii badnayn laakiin ma badna marka ama qofkan kuma filnayn. so in a city magaalada ayaan ku dhaxaylay so haddaba I am lonely keligay baan ahaa saaxiib yar helay laakiin hadda waxaan ahay keligayga. view way markii la isticmaalay wax ka dambeeyo waxaa kusoo biishuunaya shakhsiga inaysan ku filnayn ama inaysan ku badnaynba. Good. tusaalaha labaad waxaan they have got view cake on the table waxay heleen marka view cake dhowr doolsho ah on the table miiska ay ka heleen. so doolshadaas ay miiska heleen ayaga ma ku filan tahay maya view haddii aad leedna way ku filnaan leed maxaa yeelay view waxaa la isticmaalaa not money waxaan aad ku badnayn ama not enough waxyaabaha aan qofka ku filnayn. Good. tusaalaha saddexaad waxaa he has view photos isaga wuxuu helay xoogaa dhowr yacni sawiraan ah on Instagram abka loo yaqaan Instagramka ee Facebook la xiriira ayuu dhowr sawir ka helay. haddaba marka sawiradaas qofkaas uu helay isaga uu helay ma ku filan yihiin maya kuma filno sabab waxaa sababay view ayaa sababtay weedhan waxay ka hadlaysaa not money waxaan badnayn ama not enough waxaan qofka uu ku filnayn. waayahay intaas ayaan rajaynayaa inaan kusoo gaabiyo muuqaalkeena aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad ayaan idin salaamayaa ardayga iisoo sheergareeyey sawirkan ka hadlaya using a little a view aad ayuu u mahadsan yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.